وحلنا أركتي قفك مسلم كي وقبابا وحيت نلاشوا إن أنا تنا الدنيا قربها إن أنا كده يرتمر كهره ومد هدات ربطين بدباد سبت بادة دي كواد وين عقيدة دي بدبادة أي عذاب وبدبادة ورتلك هدات ربطين بدباد شو كو نارتك وحره مر لبادنا سيدو نوران في عنو قلنا والله لها تجامي لكن هدات نلاش يرى الدنيا مر كهربا الرأي كوشو كوبتد وانتو يرب بالصدا ودبتنا خالدا في النار نقضى وحما ترين وحلنا بدبادة أمة مركا وين أنا دا أركتي قالت كو يجينا أركتي قف مسلمات كو يكتا وين أتكو يكتا أركتي دا إلى مدى الحياة نلاش شوي بلادن تهيو وأطوار شلي دبركي أبها يو دبرك هو يدا بات كشرتي مركي دنبنا علاش هو يدا بات قشة مورك هو يدا عالم قارة بات كون نولد ولا قاس طوري كم باتمي وعالم قارة ولا قاس طورية حبال بات جلس وعالم قارة ولا قاس طورية إلى أي قيام الساعة تكتي دبتنا تكت عالم كأبدي قال ومراحلون ستيج ساد مريسو ساد ردد وين تكون تلقشا نظام كاد نولاد ربتيدين دحكو بدوتين ونقضوا مد ومد وقت دير بدبادين كرا ومد لباده waxay leenahay aragtidaas hadii wax iska bedelaan waxa wax iska bedelaya dadka dhaqankooda iyo akhlaaqdooda oo halkan aad ka cabanaysaan dadkii dulmiga halkan aad ka cabanaysaan amaanad darrada halkan laga cabanayo rishwada iyo laaluushka halkan laga cabanayo akhlaaqda sayyi'a halkan laga cabanayo boobka waxana dhami uu isbedelaya way aragtidii dadka isbedeshay aan su'aal idin sheego anoo xabsiga ku jira xabsiyadii Soomaaliyeed mid kamid ah ayaa nin taajiri yimi marka waxa isweydiinaya talo waxaanu doonayaa waa noocma wixii weydiinaya kuwii wadeerada waa wixii baa dukaamadii ka kiciyay marka Mustafa balada inamada kala garanay inaan wadaado fiican oo yahay waxoogaagii adduunka wuxuu daydeeyaa ninuu ku yaraa aamino balbaqaarkii qaarba mijin qaada ka siistay qaar wuxuu yaraa wadaadkan maxay iska bedelay inuu isbaga ku wadeerada oo aan buu ka midiyay waa bulshadii meesha uune maxaa iska bedelay waxaan uu ninkani ku dhalay iyo kuwii uu tolka la ahaa iyo kuwa adduunkanba uu hayay uu uga tagayay na uu uga ilaalinayo qof kalena uu raadinayo bal uu ku aamini karo waxa isbedelay aragtida nolosha ka qabeen ba isbedeshay kuwan sida daraadeed ba waxa isla bedelay dhaqankoodii maadaama aragtidiisii nololeed ay isbedeshay waxa isla bedelay dhaqankiisii walidalik ba nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa nin gaaleed u soo hoyday sida xadiiska sahih muslim ku yaala sheegay nin gaaleed bukhari ku yaala insha Allah saasa rajaynaya nin gaaleed ba u soo hoyday tabatana naf xolaaba leeyahay loo soo lisay waa loo lisay uu cabay markaasuu sheegtay inuu wali gaajoonayo waxa la yidhi mid kale loo soo lisay uu cabay wali gaajadii kama beena mid kale loo lisay la yidhi waa loo lisay uu cabay mid kale toddoba cabay dabeetana habeenkii markii uu nabigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam buska islaam waagu markuu bariyay baa la yidhi loo soo lisay neefo mid baa loo lisay uu cabay kii labaad buu yidhi dooni maayo xabadu muskacab markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam gaalku toddoba caloolood wax ku cunaa buu nabigu yidhi yacni qofka waxa isbedeshay aragtidu nolosha ka qabay awal waxay ahayd ilaa iyo intuu halkaa hadday joojinayo inuu wado oo yacni shay nahm buu ahaayo inuu guri weyni baa haysay markana wuxuu ogaaday noloshuba inay ukaylaad iska tahay ama luqayma wax yaroo una dhabarka lagu toosisto haddaad hesho nolosha inteeda kale inay qiimo badan samaynaynin dad waxoogaa aad cunto una gaajo iskaga ilaalisay heshid adna waad nooshay adna waa noolay xoolaha badan aad dheertayna wuxuu bay ku kordhinayaan xisaab badan wax badan oo kale ima dheeraanaysid noloshuna waa saynu uga halganno un kale magac iyo maamustoona kuma dheeraan kartid waxaan leenahay qofka haddii caqaa'idiisa iyo aragtidu nolosha ka qaba wax iska bedelaan waxa isbedelaya akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka iyo waxa kale waxa imanaya baan leenahay inay dadku qaataan mabda'i taqashuf ama cadam alistihlaak alkathiir amraad imka reer galbeedku ay ka cabanayaan ama dunida haysa waxa kamid ah bay leeyihiin waxa batay bay dhayn istihlaaki intaaj wax soo saarkii ma batay consumption-kiina wuu batay bay dhahdeen laakiin waxa dhahan consumption ka badan kuwan sameeya wax soo saarka abuura shay cusub bay soo saaraan raashin cusub iyo waxa kan iclaanaad iyo TV iyo dacaayada iyo waxba loo sameeyaa baritum buu suuqa galaa deetana suuq buu helaya iyaga invention kana sameeya suuqana sameeya
baahida dadkana sameeya way wadada aqligooda haystaan hadhowna lacagta ka hela waxaanina wax macna badan ba sameynaya maaha waxay leenahay مثلا التربيه الاستهلاكيه ما تصاليد كسينيه حتى ولادك لفتيسه waxaan leenahay mas'alada tan u fiirsada in wax badan ay aragtidiina iska bedelaan baa muhiim haddii rabtaan in ummadda wax iska bedelaan maxaa kamid ah waxaan leenahay حتى wadaadka maanta Yurub jooga waxyaabaan isbedelino badan baa jira oo dadka la wadaago waxa kamid ah baan leenahay كلما زاد دخله كلما زادت ترفيهاته mar allaaliya marka shilinu kordhaba balbalaadsigiisu kordhiya yani qofka muslimka waxa haboon nolosha aragtidu kale inay aragti quma noqoto ummad hadaad rabto inaad dhisto waa in faa'id la helaa waa in la helaa wixii marka la cunayo wax ka dheeraada in loo baryo taga maaha waa in juhdiga dadku soo saara juhdiga dadku sidoo soo saari kara wax ka dheeraada wuxuu soo saari kara baahida dadka in la yareeyo hadii la rabo ummad kastaaba dhaqaalay leedahay walidalik ayaa sanaacatul juu' buuga la yiraahdo ninkii qoray baa wuxuu ku tilmaamaya wuxuu leeyahay dunida gabigeedba ma jirta buu yiri ummad ma jirta buu tilmaamaya ummad ah salla ama ummad ah kolay qadada lagu rido waxay cuntaan haysan wuxuu leeyahay ummad kasta inay gaajooto duulka gaajoonayo dhan waa la abuuray dad aan wuxuu haystaa ku filayni ma jira buu leeyahay laakiin waa maxay waa su'ul idaara ama waxa weeyaan bay yiraahdaan xusnu tadbiir baa la waayay si fiican baan loo isticmaalin si wanaagsan ayaan loo isticmaalin ummad haday rabto inay horumarto waa inay yaraysaa consumption-keeda waa inay badisaa wax soo saarkeeda waa inay faa'idka ama ziyaadadu noqdaa shaygii investmentka lagu sameeyay ee ummadda wax soo saar u sameeyay maaha inay bariyo sugto iyo cid kale inay wax soo siiso waxay leenahay ninka wadaadka ama qof kasti waa inuu marka hore ka fakaraa inuu dabdin karo ama koobi karo waxa ku baxaya waxay laakiin haddii maalintaada shilinkaagu bataa tiraahdo gaariga modelkiisa bedelaya haweenaydu ama gabadha aad qabtaan ay tiraahdo kuraasidii hore da way yara liidatay kuraasi fiican inaad dhigto ayaa ka fiican oo nooc ka loo bedelo oo maalinta dakhligaagu yara kordha aad tiraahdo TV-ga guriga kuma wada filay carruurta kanaala badan bay u baahan tahay anteena yar loo soo iibiyo oo ay guriga gashadaan oo maalinta dakhligu yara kordho la yiraahdo غسالتي كوكركي غوريغا ويا لينا waxa kale loo baahay tii weelka meeydi jirtay oo weelkii baa iska uskagu ka go'ay waay oo maalinta kullama dakhligaagu yara kordhaba tiraahdo tarfiihaadkaaguna ha kordhaan oo waxa weeyaan ummadaasi ma noqonayso ummad dhismaysa waxay leenahay aqliyada tani waxaynu u baahanay aqliyad dhaqaale ka gedisan waxaynu u baahanay inaynu isticmaalno waxa ugu yar waxaynu rabno soo saari kara mesela qoladina Yurub joogta ama dadkeena Yurub degan in badan waxay hameeyaan ama in badan waxay ku hamiyaan inay wadankii ku noqdaan oo dabeetana ay wax soo saar sameeyaan war bal waxa la urursada la isugu warrama oo shirkad yar yar wax laga sameeyo laakiin waxaan ku sheegayaa in aqliyadiinu isbedelin waayo aynu ururino shirkad yar sameeyna maxaa la sameeynaya waxa doonaysaa inta tagto tuulo cidla ah inaad tiraahdo shirkadii baynu sameeyna waxaynu u baahanay data iyo fagas tuulo yar hawdka inaad la tagtid waa aqliyada ninka Yurub jooga ku fakirayo iyadoo laga yaabo afarta waraaqood ee shirkadiisa ay ku socoto baynu gacanta ku qori karo haddii uu ka maarmi karana teeb yar uu ku qori karo laakiin waxa weeyaan aqliya istihlaakiya baa la barayo wuxuu rabaa tambaaka hawl yar oo data iyo Windows 95 uu ku jiro ayaa ka fudud oo marka wuxuu doonayaa dunida inuu fagas tuulada kaga soo xidhiidho waxlana waa aqliya istihlaakiya baynu samaysanay oo qaabka leeyno tarbiyay idan waxaan masaa'ilkan maxaanu tilmaamayaa binaaga ummadeed yani waxaan idin tusaalayaal baan idin siinaya fudud oo dadku u fahmi karo waxaan qaatay marka tusaalihii dhaqaalaha waxaan leenahay binaaga dhaqaale haddaynu rabno waxaynu u baahanay inaynu masaarifta yarayno si aynu u abuuri karno wax soo saarkan aynu wax soo saarina inuu dheeraad samayn karo masaarifta ka badan si aynu u abuuri karno inuu dheeraadkan investment gali karo waayo waxaan leenahay Japan maanta dunida hogaaminaysa bal hogaaminteedu waxay gaadhay xad baa imka leeyahay meelahan researcheska lagu sameeyo ummad kasta bay yiraahdaan horukaceeda si dambeeya mustaqbalku wuxuu ku xidhay inta ay research samayso way researchesku haduu bato waxa badanaya inventionska wax soo saarkeeda
سيدرادد بي جابان ما أنت مثلا دنيا ويكون قامينسا واحد هذان أفريقيا لا تنسى عدد واحد يدي الدولة دا يابان مثل الشركات كم دا واحد صارت جائزة للسيو عندي اختراع عصب كانت أفريقيا لا تنسى عدد جدوه هاد بالله بكون يافر بقلا قف واحد يسجلين إن اختراع عصب سمايين سي جائزة دا يقول إستان عالم الثالث كمرك الله يسكت درنا لما أنت سنة كي لا بكون يافر بقلا اختراع كما يمدا invention لا بكون يافر بقلا عصب waayo waxa kala gedisan dadka si loo tarbiyay ama waxa qaabka uu fikirayaan waxa leenahay ninkan Japanese-ka waxa lagu tarbiyay inuu qaabkan uu fikiro waxa lagu tarbiyay inuu wax kasta uu soo saaro ha ahaato darajadiisu heerku doono madaxweyne ilaa ka wasay wuxuu doonaya ahaado 20% kamid ah inuu investment gelin karo 20% kamid ah inuu meel dhig karo that's why ay 14 bangi 20 bangi dunida ugu waaweyn ay u yeesheen waxa leenahay hadaan rabno ummaddu dhaqaale inay hesho waxaan leenahay waa dakhligiina ina qorshaysaan oo ay yareysaan masaariftiina oo isku daysaan inay nolosha nidaamiyaan kaas baa ummadda u ah sadaraadad baa quraanku wuxuu leeyahay kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin وحالة المام سبحانه وتعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا وحالة المامية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا نصوص القرآن كي وحي شيغيسا واروح عنا وحابة باليلي لكن قفك مؤمن كان ندي سي عبدي سويني حد لها تا إسرافكم مجرى باليلي هو ممنوع وحالي دا أغانتي يا مساكين دي يدد كودا وددك وحسي يا ابن سبيلك لكن باليلي سايد سايدين تو يدوا ممنوع كوا wax saydhaydiya waa shaydaanka walaaladii baa la yiri waxa la yiri xoolaha yaan loo dhiibin kuwa wax saydhaydiya waa masalatu al-hijriga ay fuqahadu ka warrami jireen qofku haduu safiih noqdo safiih waa maxay waa suu tadbiir bay dhaalin amwaal haduu sameeyo xoolaha hadaan si fiican u maamuli karaynin waa in lagaga soo rogaa in loo maamulo sharci ah oo isagii lahaana إلهي وحيد وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ساقنا بقى ليدي وحو حقه قال إن وحو عنو كفلا لقسيا يا وحو هو دو كفلا يسوى نكسن إن لولا نقمو لدرنسيا وحنين وحيسينا لقا قادم لكن لو كبعيني إذا وحالة الماما يهدو يساقوا حماضي مامل كيسي دقالة وانو مامول كرينين حولها أمد دالبا لليه ولا تؤتوا سفهاء أموالكم بالليل حالا ومد على بالليل يلومينه هل دورو عيد تدبيرين كرتا هل لو ديب waxaan leenahay waxaynu u baahanay مثلا قضيه dhaqaale tusaalan iyadoo haysta saadaraadad waxaan leenahay waxaynu u baahanay hadaynu rabno ummadan inaynu mustaqbal u yeelo ummad loo hayo waxay cuntaa ma xorowdo soo saama ogidin waxaad cunto hadii cid kale ku hayso de waa lagu maamulaa waxa la inuu hayaa halkan de soo ka ma waxaad cuntaa hadii cid kale ku hayso waa lagu maamulaa ummadda caalamka islaami degan noocaas bay noqotay ummad la leeyahay idinku waxa cunayseen soo saarina waxa cuntaan dibad baa la idinka keenaya wala idin soo dhoofinaya ama bilaash ay idinku timaado ama iib ay idinku timaado waxay doonto baa ku timaadeen war ummada aan waxay cunto la soo bixin ummad maaha mana jiri karto qarar siyaasiyana ma yeelan karto ummadna ma gaari kartaba saadaradeed hadii la rabo ummadnimo waa inaynu aqliyada dadkeena wax ka bedelaa maxay ku qancinaa aynu ku qancinaa wuxuu isagu soo saartay inuu cuno maxaan taa uga jeeda umadeena waxa la fiican bariis iyo baasto laakiin hadda digirta iyo galeyda ka wanaagsan laakiin kuma qanacsanin raakama hadii xataa la eegayo qolada saynisku waxay sheegi jirtay caafimaadka iyo kuwan iyo taqdiyada kuwii ka warrami jiray faaw iyo wuxuu dhan hadii la isku daro aqoontooda waxa la qirsay in digirta iyo galeydu ka fiican yihiin bariiska baastada kow digir iyo galey waynu soo saari karnaa laakiin ma rabna inaynu cunno cunnaduna waa aqliyada dadka ku xidhantay aqliyada dadka maxaan uga jeedaa yani dadka sidoo fikiraya hadii wax laga bedelo cunnadiisana waxba laga bedeli karaa waxaan taa uga jeedaa mesela waxaynu garanaynaa waa wadanka cunnooyinka qaar in la cunaa ay foolxuma ahayd way aqliyada dadkan caynkan qabin hadaan aqliyada waxaan xasuustaa dhawaan baan nin Soomaaliyeed la kulmay dabeetana wuxuu iga warramay bariga abaarihii Soomaalidu ku dhacday
ayaa reerkoodu waxay tageen meel xeeb ah anigoo inaan yaraba waxaan is ag taagay buu yidhi kuwa badda kalluunka soo saaraya aabbahay baa arkay buu yidhi bur buu igula soo cararay bal waxa hadday meeshu taagay markaan dee waxba muu samaynayno kuye oo miyaad arkayn buu yidhi hadduu soo sii dul taagnaado soo muu cuneen berritana wuxuu odaygani ka xanaaqsan yahay kalluunka inuu inankiisa cuno yani waa caqliya aynu rumaysannay bulshadeenna qaar ka mid rumaysan tahay waa caqliya aynu ku qanacsannay maalan hilibkii ama raashinkii waddankee la yaalay qaybo ka mida inay dadku mamnuuc isaga arkaan maalan tusaale aan siinaya hadhuudhka ama garowga masagada waxa loo yaqaano bulshadu waagii hore way cuni jirtay laakiin markay bariiskiiyo baasada iyo waxaan baratay baa laga baxay dabeetana waxa loo dareensiiyey dadka caqliyadoodii waxa odhanaya qofka cunaa inuu faqiir yahay marka qofku si isaga ilaaliyo wasmada ama ceebtaasi inay ku dhacdo ayuu isku dayayaa mahma dakhligiisu inuu carruurta bariis iyo baasta u kariyo reerkuna kuma qancayo inay hadhuudhkaasi iska cunaan laakiin muddo markii la joogay qaadkii iyo wixii la cunay baa calool qushqush iyo wax qaadeen kuwii lacagta lahaaba waxay bilaabeen si calooshu u socoto inay hadhuudh guriga ku karsadaan oo waxay hadhow mafrashiyadooda iyo meelahoodii kaga warrameen wallahi aan habeenkii wax kale kuma casheeyo wuxoogaa garow ama dibad yaro garow subag sixina lagu daro ayaan iska cunaayo waa ka dadkii caqliyadii baa soo gaadhay kadib haddana garowgii wuxuu dib u noqday waxay dadku aqbali karaan waayo tabaqadii xilliyada ahayd ay istilmaamaysay waa cuntay saa daraaddeed baa dadkii haddana waxay ku qanceen oo arkeen garowgu inuu yahay raashin cusub la cuni karo waxaan uga jeedaa waxani waa aragtida dadku ay nolosha ka qabaan iyo suuradooda sida daraaddeed haddaynu rabno inaynu ummad noqonno waa inay ummaddu noqotaa waxa iyadu soo saarto ummad cuni karaysa masagadaada gallaydaada maxaan ku idhaahdaaye digirtaada waxaaga waa inuu yahay waxaaga waxaad cuni karaysa ciidiba kuma gumaysan karta waxaad cunto haddaad haysato de cunaqabatayn dhaqaalaan kugu samaynaya bariis baan xidhaya bad baan xidhaya xidho waxoo dhan maxaa kugu dhacaya waxaad haysataa waxaad cunaysay mar haddaad adigu soo saaraysana ma jabi kartid laakiin ummaddu waxay jabtaa ummadda maanta laayaxa westernku lulaa maraykanku waxaan cidiba la wadaagin buug yar buu iska samaystay oo yidhaahdo qaa'ima duwali sawdaa lagu qoro waa buug u gaaro isagu leeyahay qaa'imada dunida wadamada madow lagu qorayo dad buu iska calaamadsadaa wuxuu yidhaha waddan hebel waa waddan qaa'imatul irhaabiyiin ku jira waddan hebel hadhowna wuxuu soo saaraa aragti odhanaysa in cunaqabatayn lagu sameeyo juziya dabeetana uu kasii tallaabaa ilaa iyo ay ummaddaasi u khuduucdo wuxuu doonayo dee war nin kale haddaad u khuduucdana hadda nin kale ma raba inaad horu marto saa daraaddeed waxaan leeyahay haddii aan rabno baan leenahay qadiyadda dhaqaale maalan ee ummaddeennu inay dhisanto waa inaynu yaallaa wax national food la yidhaahdo imika haddii la yidhaahdo meelahan marka gaaladu waxay dadka yidhaahdaan qolo walba dhaqankeeda iyo culturekeeda ha samayso waa kaasoo waxaa cuntaan iyo raashinkiina soo samey soomaalida maxay samaysaa meelaha geysaa ibriis baa geysaan soo maha waayo waa ilowdeen inaad national food lahaydeen inaad ummadda soomaaliga waxay cunto oo cabto oo ku noolaataa inuu jiri jiray waa la ilaabay xataa caqligeenna laga masaxay xataa hadday iyagu inagu yidhaahdaan bal carwadayada keena wixii idin ahaa national foodka bariiskii uu ingiriisku la yimi ama baastada talyaanigu watay ayuu baaba la geynayaa waxaan leenahay haddaynu rabno dhaqaaluhu inuu kobco maalan waa inaynu qofka barraa inuu xisaabsado juhdigiisu inaanu lumaynina maalinta qiyaame inuu helayo sida daraaddeed dadku nahamkan tirada badan leh hungurigan tirada badan leh la aamusiin kari la ayaa kala dami lahaa waayo dadku waxay rumaysanaan lahaayeen waxaanay shaqaysteen inaanu lumaynin ilaahay dartii inuu helayo subxaana wa tacaala walidaalik ayaa waxay u arkayeenba mas-uuliyaddu inay tahay maxay cumar bin alkhataab lahaa waxaa loo soo sheegay abu muusa alashcari ayaa war ka yimid la leeyahay waxoogaa gurigiisa systemkiisa iyo waxbaa la yara bedelay dabeetana waraaq buu u diray waraaqda wuxuu tilmaamaya yacni inaanay habboonayn ninka maamulka hayaa inuu waxaasi iska bedelo oo inuu bulshadu siday u nooshay inuu wax ka bedela inaanay fiicnayn waayo qudwaad u tahay buu leeyahy weedhuhu ku lahaa waxaa ka mid a markaa cumar abu muusa alashcari wuxuu leeyahy waxaad ogsoonaataa inaynu nahay un qof dadka ka mid a oo ilaahay ku itixaamay culays ka badan yacni wuxuu arkayay mas-uuliyaddan inay tahay in culays soo kordhay walidaalik baa cumar wuxuu u arkayay xoolaha ummaddu inay maxay yihiin xoolaha ummadda waxaan u arkayaa sidii agoonta xoolaheed oo kale in istagnaytu istacfaftu buu lahaa haddaan ka kaaftoomi karo waan ka kaaftoomaya haddii kalena sida xoolaha agoontaa loo dhaqmaya qofka xoolaha agoomeed haya dee hadduu ka kaaftoomi karo inuu ka kaaftooma haddii aanay wax kale u suurtagal ahaynna dee waa inuu in yaroo uu cuno
liqa ka cunayo waa goobta waxeeda u ilaalay xoolaha ummaddu waa sidoo kale laakiin haddaynu u arkayno inay tahayba kursigu meel loo kala dheeraynayo qaab lacag loo helaba mar hadduu yahay waa mushkilad aad u weyn waxaan leenahay sida daraaddeed nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa man baata aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi ninka gurigiisa u hoyda ama guri reerkiisa ama ahalkiisa ama meeshuu joogay isagoo caafimaad qaba waxuu cunana haysta kaasi wuxuu la mid yahay mid dunidiiba ku soo ururtay dunidu waa inta markaa in ka badan inaad waxba ka sii fakarin saa daraaddeed waxaan leenahay dhaqaale maalan haddaan rabno inaan kobcino waa inaan maamulka astaamihiisi u eegnaa oo kow maxay ah inaynu u eegno xifdigu in wax la ilaaliyaa oo aan wax la xadini inay ka horayso kartida iyo waxqabadka nabiyullaahi yuusuf markuu rabay inuu yidhaahdo wasiir dhaqaalaha laga dhigo ama ummadda dhaqaalaheeda lay dhiibo waa tii ay mushkiladda u keeneen dabeetana nabiyullaahi yuusuf riyadii markuu fasiray ambiyaduna dee basharka caadiga lama nooc aha markuu fasiray wuxuu ku tilmaamay qorshe dhaqaale oo 15 sannadood oo soo socda buu degay waxaanu doonay inuu qadiyadaasi isagu gacanta ku dhigo si ummadda kaarifadan ama dhibtan ku soo socota uga badbaadiyo laakiin wuxuu yidhi ijcalnii calaa khazaa'ini alard innii xafiidun caliim waxay leenahay haddii la rabo dhaqaalaha ummaddu inuu kobco waxaasoo dhan markaynu soo isticmaalno gacanta loo dhiibayaana waa inay noqotaa gacan aamina oo farsamo taqaana laakiin farsamo aqoonnimada waxaa ka horraysa inuu aamiye innaga laakiin dhibteennu waa maxay dee waxaynu naqaanaa kii shalay wasiirnimada lagala quustaa ilaahayeen waa tuug baa berritana madaxweyne laga dhigaya waa uun ninkii adhiga lagala quustaa gela loo diraa waa maamahadooda waxaa loo baahnaa ina khayra man istaajarta alqawiy alamiin alamaana wa inni calayhi laqawiyun amiin ayuu ku dhawaaqayay cifritun min aljin waxaan jeclay inaan soo koobo waayo waxaa garanaysaan waxaanan akrinaya waxaan leeyahay cumuuman ummaddeena soomaaliyeed way duntay waxay u duntayna waa dulmi ay gashay qiyaadada iyo qaacidaduba dulmi ay samaysay ayay la duntay kow dunuubteeda iyo cisyaankeedaa dumiyey dunuubtana waxoogaa baynu ka sharxnay si ay u soo noqotona waxa u shardiya inay toobad keento toobadeeduna waxa weeyaan baan leenahay inay qaadato manhajka islaamiga saxiixa ah oo uu hoggaankeeduna uu hayo qiyaado islaamiya oo toosan taasina waxaan tusaale idinku bixiyey mujarrad nuqtatii dhaqaale haddaynu isdhaahno nuqadka kalena wax ka tilmaamo wax laga yaabaa waqti badan inuu idinka dayacmo laakiin waan idiin soo koobaya wuxuun baan idin leeyahay siyaasiyan wa ijtimaaciyan wa kullu shay waxaa xallilaya mabda'an isaga oo daacad laga iyo bulshadu wadato ee aan isaga hore loo tajribeeyey dib u qaadano wallahu aclam wabillahi